Assalaamu calaykum. Magacaygu waa Cabdullah. Okay, halkan waa kanaalka dunida. Maanta muuqaalkeena waxa uu ku saabsan yahay dalka Algeria. Maxaad ka taqaan dalka Algeria? Ilaa iyo hadda waxaan ka fekerayay sidaan u samayn lahaa kanaal labaad, balse markii dambe waxay igu soo dhacday inaan kanaalka labaad aan sameeyo markii aan gaarno 500 oo subscribers ama 500 oo asxaab ah. Insha Allah waan gaari doonaa. Dalka Algeria waa dal madax bannaan. Waxa uu xad la wadaagaa dhowr dal. Dhinaca waqooyi waa uu xad kala wadaagaa badda Mediterranean-ka, dhinaca waqooyi bari dalka Tunisia, dhinaca galbeed dalka Morocco, dhinaca koonfur galbeedka Saxaraha iyo Mali, ilaa iyo koonfur bari Niger. Dhanka bari oo xad kala wadaago dalka Liibiya. Algeria waxaa gumaysan jiray dalka Faransiiska. Waxay madax bannaanideedu qaadatay Luulyo 3, 1962. Madaxweynihii ugu horreeyay ee dalka Algeria waxa uu ahaa Ahmed Ben Bella. Waxaase inqilaabay Hawari Boumediene sanadii 1965. Caasimadda dalka Algeria waxaa la yiraahdaa Algiers. Baaxadda dhulka Algeria waxaa lagu qiyaasaa 2,881,741 kiiloomitir laba isku weerar. Tirakoob la sameeyay 2018 waxaa lagu ogaaday in dadka ku nool dalka Algeria ay tiradoodu dhan tahay 42,200,000 oo qof ah. Luqadaha rasmiga ah ee dalka waa Carabi iyo Barbar. Luqadaha kale ee la isticmaalo waxaa ka mid ah luqadda Faransiiska. Algeria waa dal Muslim Sunni ah. Lacag laga isticmaalo dalka Algeria waxaa la yiraahdaa diinaar. Lafdhabarka iyo dhaqaalaha Algeria waa wax soo saarka batroolka. Waxay xubin ka tahay ururka OPEC tan iyo 1969. Sidaas oo kale waxay xubin ka tahay ururo ay ka mid yihiin ururka Jaamacadda Carabta, ururka Iskaashiga Islaamka, ururka Midowga Afrika iyo ururka Qaramada Midoobay. Magacaygu waa Cabdullah. Okay, halkan waa kanaalka dunida. Assalaamu calaykum.